xubno kamida odayaasha waxgaradka iyo mas'uuliyiinta beelaha biciide oo maanta iskugu yimi hotel Deero ee magaalada Burco ayaa ka hadlay xariga boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow waxaanay fariin u direen xukuumadda Soomaaliland taasoo ay ku dalbanayaan in xabsiga laga sii daayo boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow waxaanu ka cadhaysanay oo aanu cambaaraynayna arinta ka dhacday garsoorka ee Soomaaliland ee Hargeysa iyo sida sharafta iyo maamuuska iyo xasaanadii uu boqorku lahaa loogu tuntay khaasatan qarankan ballaaran ee uu boqorku ka soo jeedo waxaad moodaa in la iska indhatiray xaqiiqadana la darsoorkiina si khasaba ama si dadban wax ugu yeedhinaya si ay danahooda ugu fushadaan waxaanu aaminsanahay boqorka inaan loo xidhin waxa la sheegayo iyo meesha uu tagay ee Carmale iyo hadalka uu ka yiri wuxuu ahaa hadal nabadeed boqorku wuxuu yiri hadal nabadeed wuxuu yiri hal nabdo hal heshiyo dadka jaarka ee islaamka ayay isdilid dareenkii ka dhashay xarigii boqorka sifihii loo xidhay iyo sifihii loo horgeeyay sharciga ruuxaantii waxaynu ognahay Soomaaliland waxa la wada socoteen boqorka markii la qabtay in loo maray sifo aad iyo aad u qaraad oo ah waxaan lagu la dhaqmin muwaadin reer Soomaaliland iyo qof xisaanad iyo karaamo ummadeed sita ummadda inta la eg karaamadeedii sita waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland annagoo karaameynayna wuxuu ku ololeeyay doorashadiisii dhaweyd ee 4 bilood iyo wax yari ka soo wareegeen waxaanu kor u qaadi doonaa garsoorka cadaaladdaanu hirgelin doonaa cadaaladda shaqayn doonta gacanta sarena lahaan doonta ma idhicin taas xaajadan afqallo abwaankii weynaa waxaan ka hayaa erayo ay ka mid yihiin kolka aad maxkamadaha tagtaa tacajabaysaa kabatole maxkamad loo tirshay hadduu qalinka teelteelsho iyana waa tabaalaha waqtiga tayno aragna kama xuma dadka waa la xidhaa sifihii loo qabtay sifihii loo xukumay iyo cadaalad darradii bay dadkani ka xun yihiin madaxweyne Muuse Bixi Cabdi markaynu intaa dhaafno wax weeye waxaan madaxweyne ka codsanaynaa in loo soo celiyo boqorka xorriyadiisii iyo xasaamadiisii inaad u soo celiso adigu u soo celiso adigu Muuse Bixi Cabdi hadda tahay sababta weeyaan garsoor haday tahay haday filin tahay wixii baday wayna soo jiideen waynu aragnay boqorkii sida loo qabtay iyo sida uu arintiisa u dhacday waxay ka xun yihiin sida xun ee loo qabtay Cismaan loo qabtay boqor Cismaan Maxamuud loo qabtay bay ka xun yihiin siba loo qabtay aanu ku ogeyn dawladii hore ee Maxamed Siyaad Barre ee dalka laga xoreeyay si la mid ah boqor Cismaan loo qabtay waxaad moodaa taariikhdii inay tahay taariikhda lagu xukumay boqor Cismaan maanta lagu xukumay iyo maxkamadda xukuntay ma aha sharcigu sidaa baanu aragnaa waa dhaqan ciduu dhaqan u yahay dadku dhaqanka waxa fadhiya ama dunida baalaheeda jooga way ka xun yihiin meel kasta ay joogaan ciduu dhaqanka waxa boqor Cismaan Maxamuud xukunka ku dhacay aad bay ugu xun yihiin una dulqaadan maayaan waxgaradkan oo hadalkooda sii wata ayaa ku adkeeyay xukuumadda in si dhaqsa xorriyadiisii dib loogu soo celiyo boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow xariga boqorka iyo falka lagula kacay baanu ka xunnahay oo cambaaraynayna waxaanu cambaaraynayna inanka yiri 2 sano ayaan jees iyo maxkamad ka weynaan maxkamadda ka weyn yahay baan ugu kordhiyay xarigiisii iyo dambigiisii waxaanu aragnaa 2 sano iyo jees-jeeska uu sheegay inankaas inuu ku jees-jeesay boqorka inuu ku jees-jeesay hadal gun iyo baara baanu ka hadlaynaa waxaanu ka hadlaynaa dumarka iyo caruurtu hadalka ay ka kacaan ragguna way ka kacaan waxa la yeenin awr wado iyo ninaagi wada midna kama baydho haddii ay dumarka iyo caruurtu arrinka dhibaatada dhacda ay ka kacaan ragguna way gilgishaan oo go'a ayay ka qaataan dhulka ninka ka xidhan maanta Cismaan Buurmadow boqorka gidi jamici uu ka wada xidhan yahay haddii ay isleedihiin
xadhigga uu isagu ku leeday maxay tahay hayday jeelka idina ku leedeen guryihiina u aragtaan himilo wacan iyo haybad xadhiggiisa iyo qurux ma aha wallaahi qurux waxaa lagu xidhay baa la yidhi boqorka ciidamada ha la kala qaado oo hadduu yidhi ciidamada ha la kala qaado 15 sano ciidamadu ay dhisnaayeen beeshan meesha fadhida iyo beesha bariga yumba raggoodu dhimanayeen mucaaradka iyo marag baa ka dhintay iyo reer galbeed hadalkan cuqaasha ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii saddexaad uu xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa ku jiro boqor Cismaan Aw Maxamuud Buurmadow Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Jookar telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Burco